waqtigu waa yar yahay anigu waxba ma araranayo su'aalahan hore ka galaya wasiirku si fiican ha u dhageysto ama ha u qorto waa mahadsan yahay wasiir adigoo mahadsan iyadoo aan coronavirus jirin bay nimankaani muddo haysteen waxna qaban waayeen coronavirusku waa wax haddeer yimid marka kaas cillad buuran ma noqon karaan u malaynaya su-aasha koowaadaan ku weydiiya waxay tahay wasiir waxaa la sheegayay heshiisku wuxuu sheegayey sida aan rajaynaya inay tahay markii xildhibaanadu ansixiyaan 3 bilood gudahood inay ku soo guuraan biyaanoo 24 bilood gudahoodna ay dhisaan meel 2 markab qaada 4 sanana ay ku dhisaan meel 4 markab qaada coronavirus ka hor bay intaasi jirtay waxna kama ay qaban sababta ay u qaban waayeen maxay tahay mudane wasiir waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo mudane wasiir waxaan kaloo ku weydiinayaa hadduu ilaahay idmo annaga ganacsatadu waa reer Puntland waana la isku xiran yahay waxay noo soo sheegayaan dekedii inayba oodintay oo ay bila xafaaro tahay waana runo wari iyadoo xafaarad laga shaqeynayo maanan arag biyaan oo shaqada maxay u qaban weyday heshiiskeeda ku jidhay waxaa kaloo jira mudane wasiir tan iyo xalay iyo shalay wararna soo gaarayay waxaa yimid markab container rasidah oo wax badan reer Puntland ganacsatada u fududeynayay biyaan oo markabkaas way diiday inuu soo xirto dawladda ayaa amar ku xirtaysaan xogta ku hayno inta ka bacdi waxaan ugu maqaalaa ganacsatada oo qaylinaysa nala soo hadashay in laga qaaday lacagan xaq loogu lahayn markii dambana ay ku kaliftay inay bixiyaan lacagtaas oo ka timid biyaan oo ilaa dekada waxay keentay ma jidhay wiishash male sida naloo sheegay ama aanu ognahayba markabku isaga iska dajiyay ganacsataduna wiish weyn bay soo kireysatay ee ku qaadanaysay lacag wiishash iyagu ayaan lahayn qaarna markabku leeyahay qaarna ganacsatadu soo kireysatay bay lacag kaga qaadeen si waxaas wax lismaan ganacsatadii lacagta dheeriga way bixisay oo markii duruufta ku kaliftay hadda waxaan ugu maqaalay in la leeyahay wax dambooba imaanaya ma jiraan dekadu inay sidaa tahay marka biyaan oo heshiiskeedii uu nooca yahay inay hoostiis dekada isaga haysato xeerka banaynaya muxuu yahay inkastoo hadda aad noo sheegaysid inaad ballamo leedihiin oo ay ballamihii dib idinku yihiin laakiin ballamaha ka hor bay waxaa jabay xeerkoodii iyo heshiiskoodii saan u aragno dhinacooda inuu ka jabay baanu u aragnaa muddana waa la siiyey maxaa markaa mudane wasiir anigoo leh waa jabay xeerkaasi heshiiskaasi waa jabay anigoo leh oo 3 bilood ay ku soo guurin 2 sano ay 2 markab ku dhisin 4 sano ay 4 markab ku dhisin xiran tahay markabkii kaliya oo hadda yimidna ay diiday inuu soo xirto dawladdu amar ku xirtay lacag baadana ay ka qaadayaan dekadiina iska goodoon tahay ganacsadina qaylinayso maxay tahay mudaaraynta hadda aad wasiir la doonaysaan in biyan oo loo sameeyo aad baa u mahadsantay salaan kadib safarkii ugu dambeeyay waxaan kugu nimid xafiiskaaga Boosaaso gudiyada xubna isku dhafo ka socday inuu hogaaminayay gudoomiyaha hoggaanka koowaad ee baarlamaanka Puntland riboodkii xilligaas aad naga siisay dekada madaxweynahana aan ugu tagnay iyo xaaladda hadda sida aad u dhigtay farqi weyn baa u dhaxeeya marka muddadii aan kala maqnayn kow horta maxaa isbedelay markay xilligaa waxaad noo sheegtay in dekadii waxa weeye ay biyaheedu marayeen 9 haddana ay marayaan 6 iyo bar taasina ay kaliftay in laashash lagaga soo qaado qaarkood badeecada heshiiskan ay ka mid ahayd in ay xafaarad geliyaan midda labaad waxa weeye madaxweynuhu xilligaas wuxuu noo sheegay safar xilligaa taagnaa oo uu Dubai ku tagay inuu barnaamijkan ku soo dhamaanayo maxaa ka soo baxay heshiiskaas su'aasha saddexaad waxa weeye xilliga madaxweynuhu wuxuu noo sheegay hadda inuu Boosaaso ka baxayo markaasna safarkii uu ku tagay Dubai wuxuu noo sheegay in aan safarkan hadda uu baxayo inuu kambanigaas maartay wax la soo gaaraan maxaa ka soo baxay oo mira dhala tan kale waxa weeye waxaad noo sheegtay in heshiiskan uu coronavirus uu soo dhex galay coronavirus hadda xanuun hadduu ku soo biiray aan xilli u dhamaanay la garanayn way
sida generaalku sheegay aan ku sukan garaynayaan waxa weeye hadda xilligiisii waxaan aaminsanahay inuu buray horta heshiiskii maadaama wasiirkii qaabilsanaa tahay waxaan kaa rajaynaynaa saaka halkan heshiiskii oo dhammaystiran inaad horta ka akhrisid si goruhu maadaama go'aan qaadasho ay ku xigi doonto arrintan uu xogtiisa oo dhammaystiran u helo bacdasalaan wasiirku aad iyo aad buu u mahadsan yahay warbixintiisii uu golaha ka horjeediyey waxaan rabaa inaan dhowr su'aalood aan weydiiyo mudane wasiir waxaad xustay 2017 bishii Oktoobar inuu heshiiskan ahaa ilaa iyo maanta muddada u dhaxaysana waxyaalihii lagu heshiiyey ay fuli laayihiin marka waxaan ku weydiinayaa ma baarteen sababta hore oo wax u fuli waayeen sababta wax u fuli waayeen oo heshiisku inuu fuli waayo sabab u noqotay haddaad xafiiska timid ma baarteen oo ma ogaateen sababtu waxa ay tahay intaa kadib su'aasha labaad waxa weeye heshiisku shuruudo buu lahaa ama laba daraf buu ka dhaxeeyaa daraf walbana la rabo inuu wax fuliyo innaga darafkeenna ma waxaa jira weli arrimo aan fulin miyaa jira oo sabab u noqon kardha dib u dhaca fulitaanka heshiiska su'aasha kale waxa weeye waa fiican tahay waxaad tidhi waxaa wakhti hadda aan fogeyn haddii laga gudbo xaaladdan lockdownka ama muddo kooban baaba xustayba inaad ballan leedihiin kama dambaysa haddii ay fuli weydo oo ballankaa wax ku xalismi waayaan wax qorshaha ma ka leedihiin waa su'aal iyaduna ama muxuu yahay qorshaha idinka qorshaysan oo aad ka leedihiin maadaama dhowr jeer hore aad ku laalaabateen arrinta kale waxa weeye aan raba inaan ku weydiiyo waxaad xustay calaaqaadka iyo xiriirka innaga inaga dhexeeya imaaraadka waa sax wax badan inay inaga caawiyaan laakiin heshiiskana wuxuu u dhexeeyay shirkad iyo dowladda Puntland calaaqaadka dowladda imaaraadku ama xiriir intee leeg ama door intee leeg bay ku leedahay arrintan inay soo farageliso ama markii horeba heshiiska arrinta kale oo aan rabo inaan ku sikin gareeyo waxa weeye arrinta uu Xuseen mudane Generaal Cabdicasiis oo ah arrinta markabka ganacsatadu isxilqaanka ay sameeyeen ayada laftirkeeda cabasho badan baa ka jirta markabkana lacag dheeriya baa la yiri baa lagu soo rogay oo shirkadu ay ku soo rogtay sidoo kale konteenarada meeshii la dhigayay cabasha ka jirta maxaad ka qabateen idinku ka wasaarad ahaan cabashadaas ganacsatadu ay soo jeedinayaan ama dekada arrinta ka jirta aad iyo aad baa u mahadsantahay mudane Cabdicasiis su'aalihiisa waxaa ka mid ah maxaa xafaarad loo keenay waa loo xafaaradeen waay yes waa sax xafaarad waa loo baahan yahay in xafaarad baartay xafaaradayo dekadu u baahan tahay baahi waa jirtaa laakiin urgent aan la shaqayn karin ma jirto laakiin baahi waa jirtaa qorshahana waa ugu jirtay waana kala hadalay inay xafaarad keenaan waqtigii ay ballameen ayaa dib u dhac ku yimi marka xafaaraddu waa loo baahan yahay qorshahana waa ku jirtaa waana la samaynaya taas arrinta xafaaradda konteenarka markabkan konteenarka waday markabkan konteenarka waday oo cabashadu ka timi cabashadaasu runtii waxay ku wajahnayd sideeda maamulka dekedda waxa weeye waxa mas'uulka ah kambaniga si fuli ah iyagu markii markabkaanu yimi markabkan waxaana la ka codsaday 10 konteenar buu sidaa in la hormariyo ayaana la ka codsaday midda kale in konteenarra wax ku yimaadaan
waxay lahayd procedure ay iyagu ka soo shaqeeyaan oo istaadigareeyaan taasoo looga dalaya safety-ga maaragtay safety-ga runtii annaga baahi jirtay daraaddeed oo qolada markabka wax u saaraayeen iyo qolada markabka ruuxoodu annagoo runtii procedure-kii iyaga u dhignaa oo ahayd in la mariyo ayaan enforce garaynay waxaanu ku khasabnay kow in markabka la soo hormariyo waxaanu ku khasabnay in markabku dejiyo oo iska dejiyo marka maadaama iyagu authority-gii ay lahaayeen dekedda maadaama iyagu ay codsadeen in procedure iyo shaqo la maro wax la maro ay yidhaahdeen waxaanu u diyaarinaynaa sidii loo dejin lahaa iyo qaabka iyo meesha lagu dejin lahaa ayaan u diyaarinaynaa waxaad moodaa arrintaas marka annaga dhinaceenna enforcement ka yimi ayay ku dhacday oo annaga enforce garaynay waxay ka yimi maaha annaga enforce garaynay midda lacagta anigu runtii lacag aan jirin oo aan dadka laga qaadin oo ziyaado ah in laga qaaday anigu ilaahay hadda in details uma hayo noocay tahay iyo sababta looga qaaday in details uma hayo laakiin waxaan qabaa lacag kastoo la qaadayo item bay leedahay iyo number bay leedahay iyo wax lagu qaado ayay leedahay arrintaas waxaa weeye baaritaan baan ku samaynaya haddii ay jiraan extra charge aan xaq loogu lahayn markabka oo lagu ijaargareeyey arrintaas dib baan u fiirinaya arrinta wakhtiga 2017 Oktoobar markii heshiiska la galay iyo 2018 waxaa lagu jiray qaabkii waxaa lagu jiray negotiation dawladda iyagu waxay ku jireen oo caqabad ahayd kambanigii dhisi lahaa ayaa muddo xoogaa laysku haystay dawladdu waxay go'aamisay in ay dhisaan kambani Chinese ayaa dawladdu endorse garaysa iyaguna waxay yiraahdeen kambanigaanu 3 goor ayuu kambaniyada kale ka lacag badan yahay marka annaga waxayna kharash ziyaada ah buu nagu yahay arrintaasu waxay qaadatay mudday qaadatay intii maaragtay back and forth laga wada hadlayay 2019 dilayga dhacay waxa weeye 4 February waa tii ninkii maaraya waa tii meesha lagu dilay arrintaasu shock bay ku noqotay isla markii evacuation bay sameeyeen waa shaqaalihii joogay iyo ciidankii joogay waa saareen muddo hadday joogeenna annagu marka waa Dubai baan ugu tagnay waa ballamaan dhiganay laba ballan waxaa jiray marka ballanka ugu horreeyay oo annaguna waxyaalo xaggeena jireen xagga dawladda Puntland jireen waxana iyaga ku maqnaayeen marka waqti baan qabsanay labada iyadoo aan soo dhawaano qolobada shaqadeeda ay qabato marka June bay ahayd waxa loo ballamay September baa loo ballamay Septembertii iyadana waxa iska yimi adigu arrimo farsamo ayaa yimi alaayixda markii u dhameysay madaxweynaha tagay Dubai intervention baa arrintii laga sameeyay waxa lagu heshiiyey March 15keeda in la isugu yimaado oo arrintaas waliba yaani madaxweynuhu kambaniga maahay uu kala hadlay dawladduna ay ballan qaaday 15 March 2020 exit inuu jiri doono either in iyagu ka baxayaan qolo kale la siinayo in la fasaxayo ballanqaad dawladeed ayuu ahaa midka 2020 March
15keedii midkaas la galay wuxuu ahaa ballanqaad buu ahaa ballanqaadkaasna waxa soo dhex galay arrimahan hadda ee coronavirus-ka soo dhex galay heshiisyadana sidoodaba laba mid bay noqdaan inuu bilowga ka daaho iyo heshiiska markii la galo shaqadu bilaabato dhexda iyadoo la marayo yani ay yimaadaan caqabado oo dhexda misna ku hakado labadaas noocba waa maartay heshiisyada way ku dhacaan runtii waana number badan waay heshiisyada maalinta la kala saxiixdo iyo maalinta uu dhammaanayo ay fixi tahay runtii waa waliba yani caalam thaalithka aad bay ugu yar tahay mudanayaal fadhiga waxaa fadhiya 48 mudane 36 mudane waa ogol in wasiirka la fasaxo hal mudane waa diiday 11 waa ka aamuseen mudane wasiir waad ku mahadsan tahay kasoo qaybgalkaaga aad fadhiga nagala soo qayb gashay iyo warbixinta halkan naga siisay iyo su'aalihii mudanayaasha ay ku weydiiyeen sida aad uga jawaabtay waa mahadsan tahay wasiir waana fasaxan tahay